sidee qofka fog jacayl loogu abuuraa inteena ugu badan mar un xiriir waan la soo yeelanay qof naga fog qaarkeen si farxad ay ugu soo dhamaaday xiriirkaas halka qaarna aysan nasiib u yeelan inay sii wadaan inta badan xiriirada dadka kala fog wuxuu ku soo dhamaadaa fashil waxaana sabab u ah isxiriirin la'aanta iyo ballanka baxa taasoo meesha ka saaraysa isku soo dhawaanshihii markaasina waxaa kuu bilaabanayo dareemidda xaalad kelinimo ah xiriirkiina uu halkaasi ku burburo ma ka welwelsan tahay inuu kaa caajisay wiil aad xiriir kala fog la lahayd ha ka quusan keliya waxaad u baahan tahay inaad samayso waxyaabahan si aad uga dhigto mid ku rabo adiga kuwaan waa habab aad uga dhigi karto wiilka aad jeceshahay mid si waali ah kuuga xiisaa laakiin intaan bilaabin igu sharaf inaad hal like siiso muuqaalkan wax weyn ayay iga dhigan tahay. Number 1 ka fogow xiriirinta xad-dhaafka ah si aad u xiiso geliso talaabada ugu horeyso waa muhiim inaad ka joojiso xiriirinta xad-dhaafka ah haddii aad tahay gabar markasta fariin u qorto ama wacda waxaa laga yaabaa inaad qofka dareensiiso lahaanshiyo ama inaad ku dheggan tahay inaad 24 saacba aad 7 jeer la xiriirayso ma ku sii socon karo sidaas xiriirkiina lamaanayaasha xiriirada kala fog leh ee sidaan xad-dhaafka ah u wada xiriira waxaa dhacda badanaa waqti lumis iyo in la kala daalo kadibna uu midba midka kale ka cararo si aysan tan oo kale kuugu dhicin la qaado waqti gaaban kuna dheh hadallo macaan markaas kadib wuu ku soo xiisi doonaa weliba wuxuu u xiisi doonaa hadalkaagii qurxoonaa. Number 2 ha u jawaabin markiiba marka aan qof u xiisno waxaan raadinaa fursad kasta aan kula xiriiri karno qofkaas haddii aad rabto inuu ku xiiso wiilkaas jooji inaad markiiba ka jawaabto wicitaankiisa iyo fariimihiisa ilaa in muddo ah ka hor intaadan u jawaabin u sheeg inaad mashquul ahayd koolkiisana aad sidaasi ugu soo jawaabi weyday tani waxay ka dhigi doontaa inuu la yaabo waxa aad muddadaasi qabanaysay oo aad ka jawaabi weyday masajyadiisa. Number 3 jooji inaad active-ka noqoto mar walba baraha bulshada sida Facebook, Snapchat iyo WhatsApp la qaado waqti familigaaga iyo saaxiibadaada hadduu arki karo mar kastaba inaad active tahay ma keeni karto inuu kuu xiiso jooji inaad mar walba active ahaato haddii aad rabto inaad xiiso ku beerto wuxuu isweydiin doonaa maxaad u maqan tahay muddada intaan la eg uu kaa fikiri doonaa muddadaas ilaa uu ku soo raadiyo kuguna dhaho aad baan kuugu xiisay ee xaggeed gashay. Number 4 adiga jar koolka marka hore gabarey noqo qofka ugu horeeya ee dhiga taleefanka ama soo afjara wada sheekaysiga khaasatan noqo qofka ugu horeeya ee dhaha bye bye inaad adiga dhammayso wada sheekaysiga marka hore waxay ka dhigaysaa inuu kaaga fikiro si aan kala joogsi lahayn isagaana noqon doono qofka marka hore ku soo waco. Number 5 sug inuu isaga marka hore ku soo waco ma tahay had iyo jeer qof uga hormara fariinta ama wicitaanka wiilka aad xiriirka kala fog la leedahay hadday jawaabteedu haa tahay hadda sameey dib u garasho wana sug marka hore inuu isaga bilaabo fariinta inaad adiga bilowdo mar kasta kama dhigayso inuu kaa fikiro maadaama aad waqti la qaadato mar walba haddii aad joojiso inaad wacdo marka hore wuxuu bilaabi doonaa inuu la yaabo sababta aad u soo wici la'dahay wuuna ku xiisi doonaa in badan. Number 6 u dir sawirro si aad u xiiso geliso u dir sawiraan qurxoon galerigiisa u dhig isbuuciiba hal sawir oo qurux badan adigoo dhoola caddaynayo weliba adigoo xidhan labis soo jiidasho leh tani waxay ka dhigi doontaa inuu ku xusuusnaado mar weliba oo uu talkiisa qabsado laakiin intaadan samayn sidaan hubi in wiilkaasi xiriirka ay dhab ka tahay iyo in kale waxaadna ka dhigi doontaa mid si waali ah kuugu xiiso adiga. Number 7 u dir hadiyado qurux badan
ma rabtaa inuu kaa fikiro misna uu ku xasuusnaado jacaylkaaga kaa fog u dir hadiyado si aad dareenkiisa u soo jiidato waxa ugu quruxda badan aad siin karto ayaa ah wiilkaasi kaa fog oo xiriirka niga dhexeeyo waa barfuum aad isticmaasho inta badan tani waxay ka dhigaysaa inuu ku soo xusuusto mar kasta oo isticmaalayo barfuumkaas khaasatan markaad wada kulmaysaan aadna isku caraftihiin labadiinaba Number 8 surprise uga dhig inaad time wada qaadataan hal maalin wada qaata waqti oo isku raaca goobaha dalxiiska ah ee lamaanayaasha iyo dadka saaxiibada ah ay ku kulmaan sawiraan wada gala waayo waad kala tegi doontaan muddana ma wada kulmi doontiin inta aad kala maqan tihiin wuxuu xasuusnaan doonaa waqtigii qurxoonaa ee aad isla soo qaadateen Number 9 la qaado waqti familigaaga iyo saaxiibadaada aad goobaha quruxda badan ee loo dalxiis tago soo gal sawiraan ogeysii keligiisa inuusan ahayn qofka aad la xiriirto tus inay jiraan dad aad waqti la qaadan karto la'aantiis lana baashaali karto iyaga waxaa laga yaabaa inuu ka masayro inaad isaga la'aantiis faraxsan tahay tanina waxay keeni doontaa inuu kuu soo xiisi doono uuna rabi doono inuu waqti badan kula qaato adiga ugu dambayn Number 10 daacad ahaw noqo qof wanaagsan xaalad kastoo ay timaadaba isku day inaad daacad u noqoto naftaada iyo lamaankaaga wuu ku aamini doonaa wuxuuna kuu jeclaan doonaa si aad ah qof daacad ah ayaan ahay daacadkaa ma dhigayso ee u muuji daryeel daneen iyo dhiirigelin sii waqti badan wada qaata adiga iyo jacaylkaaga kala fogba waxaadna noqon doontiin kuwa isku soo xiisa oo midba midkiina kale soo tabaa waa intaas saaxiibayaal muuqaalkan ma dhihi karo dhammaantiin waad ka hesheen laakiin marba haddii aad inta ila soo gaartay qof si dhaba wax u jecel baad tahay misena rabo in loo xiiso sow haddii aan kugu caabiyey igu caabi adigana like-ta iyo subscribe commentina xor ayaad u tahay waa fikirkaaga intan ayuu ku dhan yahay muuqaalkeenna maanta tan iyo muuqaalkeenna kan xigana waxaan idin leeyahay guulaysta oo waqtigiinnana ha idin qurux badnaado